عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مطبخ حب العين. waxaan idin rajeynayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelka inaad fiican tihiin meel kasta dunida ka joogtaan. waxaan sameynayaa maanta pasta carno sida idin muuqatana intanay ka kooban tahay. marka horta intaanan guda gelin waxaan idin xasuusinayaa asxaabta ku cusub channelka inay subscribe gareyso, like gareeyaan, share gareeyaan, commentigana noogu soo reebtaan wixii taliya tusaalaba ah. marka inta hadii aan ka soo gudbo waxaan markan baastada maanta aan sameynay waxay ka kooban tahay halkan waxa igu jira duqad bay igu jirtaa ama hilib aan soo radqay. halkan waxa igu jira xawaashiyo dhowr ah. halka waxa igu jirta basal bay igu jirtaa, halkaana tamaandho ama xabuub aan soo radqay. halkana waxa igu jirta gorgor. baastadan karinaya marka waa tan. marka waxaan karinayaa baastadii biyihii dabkaan sii saaro biyihii way karayaan. waxweeyaan waa kiilo weeyaan, 1 kiilo oo maxaa la dhahdaa baasta ah ayaan dabka saarayaa. waxaan ku yara darsanayaa si ayna baastadu hadhow toole iskugu dhigin saliid. waxaan isticmaalayaa saliid saytuun, fur saliida. waxaan sidoo kale ku darayaa milix. qof walba isaga qiyaasta garanaya uu ku darayo ka milix aan badnayn ayaan ku darayaa. marka kiilogii baastada ahaa waxaan ku riday biyihii. qof kasta uu garanay kaliya baastada cad sida loo kariyo. ma doonayo inay jilicdo oo in badan ay saarnaato. 5 minutes uma rabaa inay in yar yar karto. waan ka dhigayaa. marka imka iyada baastadu saasay diyaar igu tahay. weli waa huruud. baastadu intay adag tahay huruudda tahay baa laga dhigayaa. saasay diyaar ku tahay. marka hataa loo waxaan sameynayaa marka duqad baan duqada baan u diyaarinayaa. suugadii baan bilaabayaa. duqadii baan bilaabayaa baastada lagu sameeyay. marka waxaan ku shubayaa saliida. qof walba isaga qiyaasan karaya inta ku shubayo oo arkaya inta yar kooban aan u sameeyay laga yaabaa inaydaan idinku sameeyeen ama ka yar tahay ama ka badan tahay. ka saliidii waxaan horshiilayaa basasha. ayayba saliidii iyo basasha isku daray dabkaas. hashilma saliidii basasha aan dabka saaray. basashii marka imika way shilmatay. waxa weeyaan waa bun yar oo khafiif ah. waxaan ku darayaa hilibkii duqadii baan ku darayaa. imika basashii waxaan isku daray duqadii hilibkii. marka way isla yara shilmayaan. saliid badanna ma laha. dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin duqada in lagu daro saliid badan si ay u shilmato. laakiin samaaha in hilibku uu aad u dhinto ay ka baxdo nafaqada iyo adduunka oo dhan. ma fiicna marka duqada inay aad u karsanto oo hilibku keligii aad u shilmo. marka in yar ma rabaa inay isla yara falgasho isla yara shilmato. way isku shilmaysaa. waad arkaysaan duqada shiilaya ma laha wax saliid oo badan. saliidda kaliya ma fiicna caafimaadka saliidda badani. imka basashii iyo duqadii way isla shilmeen.
waxaan ku darayaa xabuub baan ku darayaa soo shiiday. bismillaah. waxaan ku daray xabuubtii baan ku daray aan soo shiiday. waxa kaloon ku darayaa halkan igu jira gurgur ama tamaandhaqasa. maxaa la dhahdaa xabuubtii aan soo shiiday iyo basashii iyo duqadii isla soo shiilmay. markaa dabkaan saarayaa muddo ilaa meelahaasi 15 daqiiqo ah. intaa ay suugadu ii yara adkaanaysa isku yara karaysa waxaan samaynayaa finger fish yar oon doonaya inaan raaciyo hadhow baastada markaan diyaariyo. waxa weeyaan waa bayaad nooca kalluunka aan isticmaalayo finger fishka wax la fiyo waxa ama leh kulli wad garanaysaan. kan aan isticmaalay laftarkiisa barafkiiba ku jira wali uu qabow yahay. biyo yar iyo milix yar ayaan ku yara dhigayaa inta barafku ka yara baxayo, milixdaasna gudaha lafta ka yara gasho. wali 15 daqiiqo may gaadhin oo suugadu wali ma yara adkaanin, laakiin waxaan ku darayaa xawaashiyada. halkan waxaa ku jira 8 xawaash oo kala duwan. wax basbaas kuma jiro oo anigu basbaaska aad uma jecli, hadhow inaan qac ku dul daadsado laakiin imanka kuma darayo. halkan waxa ii dheer oo igu jira xawaashiyada waa milix iyo toon. markaan xawaashiyada ku daray waxaan sidoo kale ku darayaa khal fur khal ah. soo saaray biyihii milixda lahaa ka baxay barafkii ayaan doonayaa inaan jarjaro. waan ku goynayaa intaas baan wada leekaysiinayaa, ma rabo inuu aadna u sii yaryaraado. waxaan marinayaa markaa kamsar yar iyo toon aan isku soo tumay iyo in yaroo milaxa aan badnayn. intaas baan marinayaa. intii aan mariyey waxaan raacinayaa in yar oo khal ah. intaan halkaasaan yara dhiganayaa intaan baastada samaynayo. suugadiina iyaduna saas bay diyaar ku tahay, way qalashay oo tamaandhadii iyo adduunkii iyo xawaashidii way isla wada bislaadeen. maasha allah, urteeduna aad bay udgoon tahay. markaas suugadiina waan ka dhigay. baastada baasta kaarnada waxay kaga duwan tahay waa duqad iyo baasto qof walba karin karaya. almihii maaqlabunba dib loogu yara dubayaa.
suqadii iyo baastadii waan isdhex geliyay sidii baastadu isku rogahayd marka baasta kaalme maxaa tahay waxa kaliya tay dheer tahay baastada in la isku rogo oo maaqlaha dib loogu rogo hadalka qaar ilaahdaan baasta daawe marka waxaan ku darayaa in yar oo koosto iyo kaaro yar iyo in yar oo kamsara iyo barbarooni qofkii jecelna aftar qadshi budusha kaga taran karaa ay u raacin karaa marka baastadaas iyadu sidaa bay diyaar ku tahay aad bay u dubantay ma sha Allah aadna u macaan tahay tijaabiya ila soo dhadhamiya ma sha Allah waka inay go'go'day oo farageedu go'goysay haas odhanna way jilicsan tahay markii hore ayaabay aad u adkeyd ayaan ka dhigay marka manay jilcin ma sha Allah isaguna 10 daqiiqo ayaan ku dhigay toontii kamsartii iyo intii yarada milixdii mariyay waxaan ku darayaa xawaashiyo xawaashida man hadana yara dhex gelinayaa xawaashkii waan wada dhex geliyay si fiican buu dhex galay marka waxaan sameynayaa halkan waxa igu diyaara waa roodi qalalan oo ridqan iyo daqiiq iyo beed waxaan kaga bilaabayaa waxaan dhex gelinayaa daqiiqda ayaan kalluunka dhex gelinayaa markaan daqiiqda dhex geliyo hadana waxaan dhex gelinayaa beedkii markaan beedka dhex geliyo sidoo kale hadana roodigii baan dhex gelinayaa markaa gebi ahaanba saas baan wada sameynayaa daqiiqda dhex geliyo hadana beedka hadana roodhida sidaa baan ku dhammayn doonaa gebigiisaba kalluunka marka kalluunka isaguna uu shilmay sidaas buu diyaar ku yahay
والله ساسي ديار كنت هاي باستدي wax cunuun bay u baahan tahay aad baan idin salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaanan khadka ka bixin waxaan idin xasuusinayaa inaad subscribe garaysaan like garaysaan siina share garaysaan aad la wadaagtaan asxaabtiina aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh